Somalidan dhidhiyay dhaxmaqashinay dhankastaba ha joogee dadkan dhiiragelinaynay dadkan dhiiga hoos iyo qalbiga wada dhalaalsinay runtii loo dhakaabiyo dadkan dhabadda u sheegnay dharaar iyo habeen qayladan kor u dhawaaqaynay ujeeddada dhankii loo watayee layska dhaadhiciyey intaa dhinac marsaani waa kuwan garasha dheerayne caqligay ka dhaawacan yihiin waana shay dhabahe dhandhama bas waxa ka dhigay dhuni raacnimaye raggiise aabbayaasheen dhalay baa dhaafay hadal weyne mahmahyaday noo dhaheen midanka soo dhigay intaad sacabadow dhigan lahayd nacab ku dhudaya si u dhoomo inaad buuxsatay oo dhereegtay ku mudo dhafoor xun iyo cadowgaagu iyo dhubni ka garane waxaa loogu soo dhaashadaa dhuxsagaaraahe markaad hadalku geestu u dhacay si dhadhamisana dhudhunkeeda taallama lahayn dheefka raadsaday macnuhu waa dhigaalama barye ceebka dhowrsadaye wanaaggii dhulkiisana qofkii dhibiya howlmooda ee caloosha inuu dhansadiyo dooni dhaacadiidka ee ay waanadii dacar dheg weyn uga dhaananaato iyo dhunta kii wuxuu marshiyo lacagii dhandhanto oo sidaa dhurwaagii ka dhigan cunayay dhiiggiisa labada dhamaasan ee qalbiga dhagaxa loo saaray waa dhega dameer oo kale wax isma dhamaane sidaad ma aragtaanba buurta waxaan ku soo kornay orod iyo xoog iyo rafaad marka welina waa noo dhiman tahay laakiin ma sii aadi karna halkaas aadi karin aaday u dheer tahay waa arkaysaan intaan soo soconay hoos marka intaan ka badan ma sii socon karno magaaladiina waa aragtaa waa taas dhinacan buura naga xigto magaalada taas ay qurux badan tahay oo magaalo weyn almost 25 kilometer square waay saan is leeyahay qiyaastayda inkastoo buuro ay dhinacyada ka soo celiyeen hadda dhinacan joogno waa dhinaca Kenya dhinaca Tanzania waa loo gudbi karaa marka soo dhawaada barasho wanaagsan Namanga ninkan dhinaca iga fadhiyo waa saan magaalada ka soo horreeyay Cabdirasaaq la yiraahdaa Cabdirasaaq hadda waa deegaan iyo isbuuciyan deganahay deegaan aan hadda ahay marka Namanga ka soo salaam ku weydiiyay هذا سؤال دان كويدي بالكورن ماشي كسو غورتي تان هذا فرق u dhaxeeyo aad u weyn u dhaxeeyo meesha meel dalxiis leh oo meel buuro leh oo qabow waa Soomaali badan degan iskuulka ka furan madrasa ka furan waa meel loogu talagalay macnaha in la yiraahdo la degaba waa soo cad arkaysan waa dhul dalxiis ah waxa ku yaala hoteelo lagu dalxiiso ateenada qaybta Tanzania laakiin qaybta Kenya laabka galeysa buuraha qaar soo celinaya bag nationalka oo Amboseli bag wuxuu noo jiraa adig 50 kilometers oo maxaa jooga labaad Kenya oo loo dalxiiso dadka cadaanka iyo dadka Kenyanka u dalxiisaan hadda ilaa la dhalinyarada iga soo wixii soo joogto oo maanta u dalxiis tagtay anaga insha Allah waa tageynaa marka hadina ma go arkaysan quraxdeedo yes marka waxaan leenahay soo dhawaada cidii dalxiis u baahan inuu ku soo dalxiisana maangoon soo dhaweynayna gacmo furna ku soo dhaweynayna Cabdiqaadir
doonaan oo kusoo dhaweynaynaa geel hadda waxa buurta gaasho geelila joogo qaybtan geelila joogo waan tigi doonaa aniga Cabdiqaadir saa dambo geel life ka soo gali doonaa anagoo geel la joogna marka soo dhawaada dhalinyaro muuqaal